السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال كسو دوادا qaybteeni labaad ee buugga sooyaalka gobolka Banaadir oo taariikh cajiib xambaarsan waxay noo mareysay burburkii xukuumadii Ujuuraan markana Suldaankii Hiraaba sanadkii 1997 markii laga adkaaday ciidamadii xaakimkii Ujuuraan ayaa waxa xukunka la wareegay Suldaan Hiraab oo la oran jiray Imaam Maxamed Imaam Axmed. sanadkii 1112 Hijriyada ayaa waxa xeebaha Muqdisho soo gaaray 7 markab oo ay lahaayeen Boortaqiiska iyagoo doonayay mar kale ay qabsadaan Muqdisho waxayna 12 maalin taagnaayeen marsada Muqdisho. waxaa loola dagaalamay qaab cajiib ah oo ay dadka qaar rumaysan kareenin sidoo sheegay Shariif Cayn Duruus oo taariikh dhowr ka qoray Soomaaliya. maraakiibtaasi xeebaha Muqdisho soo gaaray ayaa si aad loogu tashtay culimadii dalka degnaa gaar ahaan Shingaani iyo Xamarweyne. waxaa loo saaray in ay markaasi iyagu kaalin weyn ka qaataan. iyaga ayaa mas'uuliyadii qaatay 7 sheekh ayaana loo qoray waxay qoreen 7 xirsi dabadeedna waxaa la soo qabtay 7 duke oo mid kastaba hal xirsi qoorta loogu xiray dabadeedna ay u duuleen dhinacii maraakiibta 7 heeda. waxaana dhacday in mid walba markabkii uu ku kordegtay ugu dambeyn maraakiibtaasi 7 ah ay wada quusteen. sanadkii 1284 Hijriyada ayaa oday dhaqameed oran jiray Muuse Xuseen oo biimaal ahaa waxa uu fariin qoraal u diray boqor Carbeed oo la oran jiray Saciid bin Maajid kana mid ahaa salaadiintii reer Aala Barqaasha. wuxuuna warqadaasi ugu dhiibay nin la oran jiray Cusmaan Laamo oo reer Muqtaar ahaa waliba reer xebeed ahaa. warqada oo odaygaasi u diray boqor Saciid ayuu kaga dalbaday in uu soo diro ciidamo xoog leh oo ilaalinaya magaalada Marka iyo waliba deegaanada hoos yimaada. Suldaan Saciid bin Maajid wuxuu soo diray ciidamadii uu dalbaday Muuse Xuseen wuxuuna Suldaan Saciid ahaa ninkii saldanadii Cusmaaniyiinta u wareejiyay jasiiradda Zanzibar. xilligaasi waxaa magaalada Muqdisho ku wareegsanaa darbi kana xigay dhinac walba markii laga reebo dhanka koonfureed. waxay magaalada kala lahayd xuduudo u kala cayiman qabaa'ilada u soo safri jiray iyadoo qabiil kastana uu lahaa irad uu ka soo galo iyo meel uusan dhaafi karin. marka qabaa'iladu ay ka imaanayaan baadiyaha oo ay soo galayaan Muqdisho waxay hubkooda dhigan jireen banaanka irida ay ka soo galayaan waxayna gudaha u soo gudbi jireen iyagoo sacbooley ah kaas oo ahaa qaanuun uu ku soo ragay magaalada Muqdisho xaakimkii Barqash. albaabada goobaha ganacsi ee xilligaasi ku yaala magaalada Muqdisho waxay ka sameysnaayeen shub adag lagama sameyn jirin bir ama alwaax taasoo xukuumadda Barqash ee ku macnaysay in ay si weyn ugu murgayaan ammaanka hantida dadweynaha iyo deganaanta dalka. waxaa magaalada Muqdisho dadku lacag ahaan u isticmaali jireen waqtigii xukuumadii Barqash lacag la oran jiray peso waxaana laga sarifi jiray riyaalkii isticmaali jireen Faransiiska. xilligii xukuumadii Barqash waxaa Muqdisho suuqa xoolaha u ahaa deegaanada Shingaani iyo Xamarweyne waxaana suuqaasi lagu kala iibsan jiray ariga, lo'da iyo geela. wuxuuna balaciisa ku fadhiyay deegaanada Shingaani iyo Xamarweyne isagoo soo gaaray xilligii xukuumadii hore ee Talyaaniga. sanadkii 1289 ayay ciidamadii xukuumadii Barqash ka dhiseen qalcad weyn agagaarka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo wali laga dareemayo muuqaalkooda. dadkii hore ee degnaan jiray Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee dhaca bariga kuna deysan xeebaha waaweyn ee badweynta Hindiya. waxayna taariikhyahanadu sheegaan in dadkii ugu horeeyay ee Afrika ay soo degay ahaayeen Sinuujta. dadkani ayaa markii hore waxay degnaayeen bariga Afrika waxaana ugu dhow yimid qabaa'iladii Saamiyiinta loo yaqaan ee Carabta. markaas ayay iska dhexgaleen waxaana ka dhashay dadka loo yaqaano Bantuga. sidoo xusaya buuggani Bantuga waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee Soomaali dega waxaana xilligaasi ahaan jireen dad ugaarsato ah. nin la oran jiray Van Oret ayaa buug la oran jiray Al-Kaab oo daawacay sanadkii 1907 wuxuu ku sheegay in Bantuga asal ahaan ay ka soo jeedaan jasiiradda Malqa oo ay u guureen Ciraaq iyo waliba Baabil kadibna ay ugu sii gudbeen bartamaha ilaa iyo koonfurta Afrika. qolyaha Bantuga waxaa Soomaaliya ka ceeriyay qarnigii 11aad ee miilaadiga qolooyinka la oran jiray gaalaha ama Oromada. haddaba maxay yihiin qolooyinka gaalaha ama Oromada? markii ay Bantuga badankood ay ka eriyeen Soomaaliya nabadgelyo ma helin oo waxaa dagaal la galay dadkii Soomaalida ahaa iyagoo markaasi dagaalkaasina ay qaadatay muddo dheer. inta badan
ciidamadii la dagaalamaya qolooyinka gaalaha waxay ku soo gurgurteen goboladii waqooyiga galbeed ee Soomaaliya wuxuuna dagaalkii u dhaxeeyay gaalaha iyo Soomaalida socday boqolaal sano. dagaalka ayaa sii balaarmay wuxuuna soo gaaray ilaa iyo gobolka Mudug markaas oo ay guusha raacday Soomaalida iyagoo xilligaasna magaalada Gaalkacyo ka qabsaday kooxihii gaalaha. waqtigaas magaaladu ma lahayn magacaan hadda loo yaqaan ee Gaalkacyo ee wixii lahaan jirtay magac kale wuxuuna magacani u baxay markii qolooyinka gaalaha laga kiciyay magaaladaasi. xilligii gaalaha laga kiciyay deegaanada Mudug ayaa lagu sheegay in uu ahaa qarnigii 11aad ee miilaadiga balse waxaa jiray qolooyin isla iyaga ah oo ku noolaa deegaanada Shabeellooyinka. dagaalkii u dhaxeeyay labada dhinac ayaa markii dambe waxa uu soo gudbay dhanka iyo Shabeellooyinka ilaa iyo kama dambeys ee kooxihii gaalaha ama oramada laga saaro dhulka Shabeelka wuxuuna waqtigaasi ahaa qarnigii 15aad ee miilaadiyada. awoodii gaalaha ayaa gabi ahaanba dhamaatay ama baabaaday qarnigii 18aad ee miilaadiga kadib dagaalo lagu baaba'ay oo iyagu iyo Soomaalida dhex maray dhowr boqol oo sano waxaana dalkii degnaa mandiqadan aynu ku noolnahay si rasmi ah u qaateen magaca Soomaaliya. dowladihii hore iyo magacyadii ay Soomaalida ugu yeeri jireen. Masartii hore wadanka Soomaaliya waxay ugu yeeri jireen wadanka Buntiga oo loola jeedo wadamada baraafuunada iyo catarka. Griigii hore wadanka Soomaaliya wuxuu ugu yeeri jiray Azaniya. Roomaaniyadii hore wadanka Soomaaliya waxay ugu yeeri jireen wadanka Barbarka ama Barbarooni oo loola jeedo dhulkii aan la garanaynin. Faaniqiyiintii hore wadanka Soomaaliya waxay ugu yeeri jireen wadanka Barafoonka. Carabtii hore waxay ugu yeeri jireen dadka dega geeska Afrika amaba Ardul Xabash dhulkii Xabashta.